بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ومن سبحان الله dadweyno badhaweyd ayaan baraha bulshada aan qaybta Facebook yara booqday hore ayay Soomaalidu ugu mahmahday cimrigaaga waraaga geldalaya waa ku tusaay mid ka mid ah caruur yar intay boorsadii dhex gashay ay isku soo dabooshay ay ku ciyaarayeen kuwii kalena ay kaga tageen midii isku soo dabooshay ee ku dhex jirtay boorsada dhexdeeda ayaa ku dhex gamaaday iyadoo ku dhex gamasan ayaa gaari nooha jiray naftu waa baaqiye ilmi waa nool yahay sida uu sheegayo bal waa kale ila daawada way saacatay inta halka shandada ku jirta ciyaalkii kale way ka tagay way gamaaday wata birtii yaray oo gaarigu jiray ee ilmaha yar hoos jiiftay birta kale halka taalana waxa uu qabatay inay marto oo mirta dhaawac u geysataan ilmaha yara in dadweynaha la wadaagno kullay dhacdooyinka cusub ee mar kasta dhacaya in aanu sheegno digniinta ka siino 27kii bisha 3 galabnimo gaari nooha ayaa jiiran inan 3 jira inantaasi meel ciyaalku halka la yiraahdo meesha la yiraahdo sheedaha ay ku ciyaarayeen marka ay ciyaarayeen waxa la jooga ciyaal kale waxa dhacday gaariga markuu soo mariyay meesha ciyaalkii way saacatay inta halka shandada ku jirta ciyaalkii kale way ka tagay way gamaaday runtii ninka la yiraahdo Cabdillaahi Cabdi Xasan oo muxuu ahaayay dawladtii waxa halkan ku qoran waa 27 jir waa nin weyn kama u joogsan shandadaas wax ku jira ma ogaan wadada kama beydin wuxuu jira shandadii gaariga taayirka markuu dhacay ilmihi yaraa way carabtay way qaylisay dhaawac baa soo gaaray kooymay ku jirtaa dhakhtarka la yiraahdo amal garan ayay taala horey waan u sheegnay nuxuu doonay ahaado inanteerna waxa la yiraahdaa Raxma Aamin Xasan waa 3 jir weeyna taayiri waxaan uga digaynaa inay darawalintu mas'uuliyadda qaadaan oo iska ilaaliyaan dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu faraynaa oo ka codsanaynaa darawalinta ninkii u bareera arintaas inuu dambigaas isagu leeyahay isku dilday lagu qaadi doono